السلام عليكم asxaabteeda ku xiran channelka aanu kaga hadalno horumarinta bulshada. Waxa aanu toddobaadkan uga hadli doonaa xanuun maskaxeedka, waxa uu yahay astaamaha lagu garto, waxyaabaha sababa iyo sida lagu daaweyn karo. Inkastoo aan warbixin sugan lahayn inta qof ee Soomaaliya ay qabto xanuunkan, haddana waxaa maragma doonto ah in xanuun maskaxeedka uu yahay xanuun ka dhex dhaca mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka ka joogaanba. Haddaba haddii aan si kooban u qeexno xanuunkan, waa xanuun isku dhexyaac maskaxeeda. Xanuunkan waa xanuun soo jireen ah inta taariikhda bini'aadamka la ogsoon yahayna dad badan aafeeyey. Dhibaatooyinka xanuunkan lama ogaado ilaa uu qofku qaangaadho. Maxaa yeelay xilliga qaangaadhka maskaxda qofka bini'aadamka ah waxaa ka soo shacbaxa isbeddel weyn. Xanuunkani waa xanuun ku dhaca da'da dhalinyarada dhexe inta u dhaxaysa 15 ilaa 30 sano. Xanuunkani waa mid isku mid ah ugu dhaca ragga iyo dumarka, laakiinse waxaa inta badan dhacda in calaamadaha ay raggu markaaba ka soo shacbaxaan marka loo barbardhigo dumarka. Xanuun maskaxeedka waa xanuun waxyeeleeya fikirka qofka, keena dareenno aad u xunxun, cabsi badan ku abuura qofka bukaha. Qofka qaba xanuunkan waxa uu dhibsadaa bulshada iyada oo ay ku dhacdo waxa loo yaqaano antisocial behavior oo ah cuqdad bulsheed, iyada oo uu qofku aamino in dadku ay waxyeelayaan. Inta badan dadka qaba xanuunkan waa ay adag tahay in ay dhex galaan bulshada ama ay yeeshaan saaxiibo. Haddii aynu eegno waxa sababa xanuunkan, khuburada xanuunkan ku xeel dheeri waxa ay aaminsan yihiin inuu xanuunkan la kala dhaxlo ayna sababaan hiddo-wadayaasha qofka. Waxaa sugan in qof kasta uu ka samaysan yahay 46 hiddo-wadayaal, iyada oo 23 ka mid ah ka yimaadaan hooyada, 23 kalena ay ka yimaadaan aabbaha. Hiddo-wadayaashu waxa ay kaalin firfircoon ka ciyaaraan isu gudbinta xanuunkan, iyada oo heerka ku dhicista cudurkan uu aad u sarreeyo qofka ay qabeen waalidkii ama qaraabadiisu. Daraasad la sameeyey waxaa lagu ogaaday in dadka aan isirka u lahayn xanuunkani uu ku dhaco keliya 1%, halka dadka isirka u leh uu ku dhaco 10%. Waxyaabaha kale ee sababa waxaa ka mid ah nafaqo-darrida hooyada oo aan helin nafaqo ku filan ilmuhu marka uu ku jiro caloosha, iyo dhaawacyo ilmaha maskaxda ka gaara marka uu dhalanayo. Saynisyahanada ku xeel dheer xanuunkani waxa ay rumaysan yihiin in ay xanuunkan sababto isku dheelitir la'aan habka maskaxdu u shaqeyso. Tusaale ahaan, isku xiriirka qaybaha maskaxda waxaa door weyn ka ciyaara neurotransmitters-ka oo ah unugyo maskaxeed aad u tiro badan oo lagu qiyaaso bilyanno, kuwaas oo si dhakhso leh ugu gudbiya fariimaha qaybaha kale ee maskaxda. Sidaa darteed, saynisyahanadu waxa ay sheegaan khalkhal ku yimaada habkani in uu Haddaba sidee loo daaweeyaa xanuunkan? Daaweynta xanuunkan loo isticmaalo waxaa loo yaqaanaa antipsychotic medication, kuwaas oo la helay sanadii 1950. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la caddeeyey in daawooyinkaasi ay cillado waxtarkoodu ka badan abuuraan. Tusaale ahaan, daawada clozapine oo la helay sanadii 90-meeyadii oo ahayd mid loogu talagalay daaweynta hallucinationska, oo ah waxyaabaha qaldan ee uu qofku arko, waxaa la caddeeyey in ay leedahay waxyeello aad u waaweyn oo khatar ah. Daawadan waxa ay si aad ah u dhaawacdaa unugyada difaaca ee dhiigga cad, kuwaas oo qofka ka caawiya in uu ka bogsoodo caabuqa.